أريد إمارات كعربتا دل أن صاحبنا هاي شلي ما نان صاحبين تاريخ فع كفع أين صاحبين دلك أنا إلى جيل كه محن كورا هذا عيال جالياشي مركا أكتيس سكولك مركا اللي حدا تجي جري وعن حسوسنا دل يرى إماراتي والشيخ زايد بن سلطان الله أن حريسته وصدري وعيال جالنا للجوكتي وعن حسوسته مدحوينا محمد سياد برئي الشيخ زايد وإسلا السعودة oo noogu yimiday ceel jaal oo nala jooga oo muddadan nala joogay oo howlaha ceel jaal lagu ay arkay waa todobaatemeeyadii markaan ka hadlayo todobaatemeeyadii waxa waaye 50 sano ka hor waay oo dhalinyaro yar aan ahayn maalintaas 70kiina waa markay imaaraadka xorriyadda qaateen oo dawlad noqdeen maalintaas cilaaqaadkeena bilan diyaaradaheenii Soomaaliya Airlines dalkan la jirta qaar kamid ah ayaga dawladda Soomaaliya annaguna sidoo kale ciidamada wax badan ka maalintaas laga soo bilaabay ilaa maanta dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda Soomaaliya saaxiib bay ahaayeen heshiisyada abi dhaw madaxdu waa kala waxaysaa shalay muxuu ahay Mareykanka oo Trump joogay iyo maanta Biden joogay isku mid ma madaxda hoggaanka mar walba influence-giisa iyo aragtidiisa uu leeyahay weligeen cadaawadna dhaxmartay ma jirto maanta aan joogno marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dawladda Imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taaganahay la dagaalanka argagixisada waay kabka aynu ciidanka la amaanayay maanta oo dhan ee magaalada Muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qarabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dawladda Imaaraadka Carabta na siisay wax shuruudo ku xirnay iyo waxaan uga bedelanay oo inaga qaateen ama ay naga sugayaan ma jirto waxaan rabaa marka dadka cadawga Soomaaliya waay dadka ka shaqeeya Soomaaliya iyo saaxiibada inay isqabadsiiyaan oo u kala xumo sheegaan war annaga warkaynu waa cadda ciidan la dirsanaa mala cid kasta saaxiibaan lana waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan u sheego dawladda Imaaraadka Carabta saaxiibada ugu waaweyn Soomaaliya ay leedahay maanta la jooga waay berri ninkii kale hoggaan oo yimaad iyo aragtidu ka qaatay iyo hadii hoggaankooda ayagu isbedel waa hawl kale oo maqan laakiin maanta saaxiibada waaweyn oo aan leenahay oo dagaalka nugula jira oo na kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga Imaaraadka Carabta xaalkeenu waa saas